waxaa farxad weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo kulankan muhiimku ah ee lagu daahfurayo dib u eegista iyo qiimeynta qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda. tani waxa ay qayb weyn ka tahay habeynta ballaaran ee ku socota dhisidda maamul wanaagga iyo hufnaanta hay-adaha dowliga ah, haddii ay ahaan lahayd dhinaca maamulka hay-adaha dowliga ah, shaqaalaha rayidka iyo dhinaca maamulka maaliyaddaba intaba. in dowladda iyo dalku lahaadaan nidaamyo iyo hanaan hufnaan oo siyaasado iyo shuruuc ku shaqeynaya waxay ka mid tahay dowlad wanaagga, taasoo inoo horseedaysa in dalkeennu uu sameeyo horumar baaxad leh haddii ilaahay raalli ka noqdo. waxaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda maaliyadda iyo guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ah ku ammaanayaa kaalintii baaxadda leh ee ay kana qaateen dib u habeynta hanaanka maamul wanaagga maaliyadda iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda, iyagoo wada shaqayn buuxda ka helaya dhammaan hay-adaha dowliga ah ee taageero ka helaya hay-adaha caalamiga sida bangiga adduunka iyo qaramada midoobay iyo dalalka kale ee Soomaaliya gacanta ku siiya kasoo kabashada caqabadaha soo qabsaday Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay hirgeliso siyaasadda iyo shuruucda laga maarmaan ku ah dib u habeynta qaab dhismeedka hay-adaha dowladda, shaqaalaha rayidka iyo hanaanka maaliyadda si loo helo hay-ado leh qaab dhismeed degan, waajibaadyo, darajooyin iyo shaqooyin qeexan leh. waad la socotaan inta badan shaqaalaha xafiisyada nagala shaqeeyo iyo isla hay-adahan ka shaqeynaba badanaa ma haystaan job description ama howl qeexyo ku qoran waxa ay qabanayaan iyo cidda kale xisaabtamayso, iyagana cidda mas-uulka ka yihiin iyagaba cidda mas-uulka ka ah. tan labaad, shaqaalo leh hanaan hufan oo ay ka soo galaan kagana baxaan shaqada hay-adaha dowladda. waad la socotaan hadda xafiiska aan joogay, xafiiska ra-iisul wasaaraha, shaqaalo badan ayaa ka shaqeeya. markaan runta idiin sheego, shaqaalahaas qaar waa maqan yihiin, qaar way joogaan, qaar way ka tageen, weli ma qeexna kuwa jooga, kuwa ka tegay, kuwa shaqeeyo. marka waa in la helaa hanaan lagu ogaan karo shaqaalahaasi waxa ay qabtaan, halka ay jiraan, kuwa jooga, kuwa shaqada wanaagsan qabta iyo kuwa maqanba. midda saddexaad oo loo baahan yahay waa hufnaanta nidaam maamul maaliyadeed oo dhammaan hay-adaha dowladda ay wada leeyihiin. ugu dambeyntii, waxaan dhammaan hay-adaha dowladda ugu boorinayaa in lagala qayb qaato, gacanna lagu siiyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda maaliyadda iyo guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ah, arrimaha la xiriira dib u habeynta maamulka shaqaalaha iyo maaliyadda. waxaa intaa ii dheer oodna ogtihiin, xafiis kastoo aad tagtid waxaa ku qoran la taliyayaal ama consultant kana mushaar badan shaqaalaha rayidka ah. waa wanaagsan tahay in la qaato dad khibrad u leh, la taliyaal wanaagsan, consultanti ah, laakiin haddana waa in la tixgeliyaa shaqaalaheena ma laga dhex helayaa, shaqaalaha rayidka mayaa laga helayaa dad khibraddaas leh? waa laga helayaa. waxaan ka soo jeedaa background hay-ad shaqaale. dadka consultantiga aan u qaadano runtii subaxii wakhtiga loogu talagalay ayay yimaadaan, shaqada wakhtigii loogu talagalana way baxaan 8 saacadood oo fuul ah. laakiin waxaa moodaa hay-adaheena, wasaaradaheena, xafiisyada dowladda consultantka ku qoran oo ay siiyaan hay-adaha caalamiga ah wakhtigay rabaan ay yimaadaan. marka waa in lala yimaadaa isla xisaabtan sax ah. waddankan shaqo badan ayaa u taallo, shaqaale badan ayuu u baahan yahay, waxqabasho badan ayuu u baahan yahay si looga gudbo heerka aan maanta joogno, loona gudbo heer wanaagsan. waxaana looga gudbi karaa in qofka Soomaaliga ah uu shaqeeyo ugu yaraan 8 saacad ama wixii ka badan. laakiin ma u dul qaadan karno, mana ka yeelayno in shaqaale iska maqan ama shaqaale waqti yar 2 saacadood 3 saacadood subaxii duhurka yimaada iyagoo barfuunkooda leh, saacad kadibna iyagoo carfaya shaqada ka tagaan. ma yeelayno, dalkana kuma hormarayo. marka waa mahadsantihiin. hadal yar iyo howl badan. wabillahi tawfiiq.